Bismillah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaalahayga qaaliga ah soo dhawaada meel walba adduunka joogtaan. Channelka daawanaysaan waa Mariso Beauty. Fadlan hadduu yahay markii ugu horeeyay subscribe isaad. Inta hore gula joogtana aad iyo aad ay u mahadsantihiin daawashada daawanaysaan videogan. Waxaan igu codsanayaa asxaabteeda qaaliga ah videogan inaad like ii saartaan, asxaabtiin kalena la sii wadaagtaan. Maanta halkan waxaan igu hayaa kalar dabiici ah gurigaaga ku samaysan kartid, madaxna ku dheereenayo, aadna madaxaad u qurux badnaanayo, weekina hal mar ay marsan kartid. Walaalahayga qaaliga ah soo tijaabiya ayaan leeyahay sida u sameeyana ila daawada. Walaalahayga qaaliga ah hore waxay ugu barateen inaan soo geliyo cuntooyin aad u macaan badan. Maanta waxaan wadaa videogan yar ee quruxda badan, marka ila daawada ayaan leeyahay. dumarkeena Soomaaliyeed waxay ka caawinayaan timo go'itaanka, bixi la'aanta iyo timihii oo hoos u sii soconayo. Marka walaalahayga qaaliga ah soo tijaabiya, anaa soo tijaabiya insha Allah. Walaalahayga qaaliga ah kalarkeeni waxyaabaha ka sameeyay sida u sameeyay ila daawada. markaani meeshan waxaan ku haystaa beetroot amba beetroaf ayaa ku haystaa, labada magac ayaa loo qaranayaa. midkaani waa soo fiiqday, kanna ma soo fiiqanin. marka sida waxyaabaha ku dardar lahaa la daawada ayaan leeyahay. makiinadii ayaa meeshan itaala ku shiida lahaa. meeshan kale waxaan ku haystaa xulbadana xalay hore ayaa biyo la dhigtay, biyihii waa ka soo miiray sida ay ugu jilacdo aawadeed ayaa biyaha xal ugu shubtay. meeshan ayay ugu diyaarsan tahay walaalahayga qaaliga ah. meeshan kale waxaan ku haystaa cilaan oo original ah, 3 qaanto oo cilaan ah ayaa meeshan ku haystaa walaalahayga. meeshan kale waxaan ku haystaa 2 xabo oo kun ah. meeshan kale waxaan ku haystaa jablin dhanaan sida isku dardari lahaa ila daawada ayaan leeyahay. madruuta ayaa soo jarjaranaya, kadib ayaa isku soo naqanaynaa insha Allah. walaalahayga qaaliga ah badruudkii waa soo jarjartay, meeshan ayuu ugu diyaarsan yahay. kullool waa soo wada jarjartay. marka makiinadii ayaan ku shubanayaa sidaas ugu la socda. badruudkana madaxa wuxuu ka dhigayaa baroon, qoftii madooba uul ah, qofkii cadcadaan ku jirin walba wuxuu noqonayaa red ama loo noqonayaa gaduud yar. maasha Allah qurux badan ayuu noqonayaa. xulbadana waxayna siinaysaa jileec, maasha Allah dhirir qurux kaale iska arag. xulbad wax walba ayay u fiican tahay walaalahayga qaaliga ah. hadda waxaan ku darsanayaa biyo yar oo haaf ah, waayo xulbada iyo badruudka waa qaleel. biyo yar inaan ku shiito ayaa rabaa walaalahayga qaaliga ah. sidaas ugu la socda. waa soo shiidanaya, kadib ayaa isku soo naqanaynaa insha Allah. walaalahayga qaaliga ah meeshan waxaan ku haystaa cilaankii ayaa meeshan ugu diyaarsan. hadeertan waxaan ku darsanayaa liin dhanaantii jabka ahayd balaadhehe meeshan ugu diyaarsan walaalahayga qaaliga ah. liinanta waxay ka saacideynaysaa cilaanka gaduud fiican ayay siinaysaa. liinanta aad iyo aad ayay u fiican tahay. hadeertan waxaan ku darsanayaa badruudkii iyo xulbadii biyo yar isku soo shiitay ayaan ku darsanayaa walaalahayga qaaliga ah. sidaas ugu la socda insha Allah. جنة الدنيا يا أمي تحت أقدامك مناي، كل نبضة تحكي يما إيه أحبك يا غلاي. جنة الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي، كل نبضة تحكي يما إيه أحبك يا غلاي. جنة الدنيا يا أمي تحت أقدامك مناي، كل نبضة تحكي يما إيه أحبك يا غلاي. كيف بوصف لك شعوري صدقي حبري يا وفاي، مهما رتبت المعاني تاهي حرفي يا سناي. كيف بوصف لك شعوري. meeshan waxaa igu jiro cilaankii, badruudkii, xulbadii, biyo yar isku soo qasay, liintii si fiican marka iskugu soo gelgeliyo. kadib waxaan sameynayaa oo daboolanayaa wax yar markuu soo qamiiro amba oo soo kaco ayaa iskugu soo noqonayaa insha Allah. iyo waxyaabihii kale aan ku dari lahaa. walaalahayga qaaliga ah markuu soo qamiiray sidan aan wada jeetaan ayuu noo noqday. maasha Allah baquliguu noo buuxsamay sida wada jeetaanba. meeshan kalena waxaan ku haystaa 2 xabo oo kun ah.
qaybtan yelowga madaxa way jilcisaa aad ay ugu fiican tahay. qaybta kale cadaankana madaxa way adkeysaa timaha. qofkii timihiisa jilic yihiin saaid yihiin qaybta cadaanka wuu ku darsan karaa. qofkii timihiisa iska caadi yihiin wuu iska intee karaa. ukunta waxay timaha ku saacideysaa dhaldhalaal ayay u yeeshaa walaalahey qaaliga aad iyo aad ay ugu fiican tahay ukunta. isbuuciyada hal mar marisid maasha Allah ka faa'iidi doontaa insha Allah. had si fiican ayaa isku soo gelgelinayaa oo isku soo qasayaa kadib ayaa isku soo naqanaynaa sidaas ugu socda. aad iyo aad ayaa mahadsantihiin daawashada daawaneysaan mahadcelintiina mar walba ma gadaalayo insha Allah. walaalaheyga qaaliga dad waaweyn iyo ilmo yar intaba way marsan karaan. waxaan leeyahay hal mar inaad tijaabisid taa isku tayin inuu isla markiiba ku qurux badnaado ma ku qurux badnaanayo waa inaa muddo wataa kabacdi madaxaada ayaa ka arki doontaa insha Allah. walaalaheyga qaaliga gaduudka wuxuu madaxa u siyaadinayaa amba timaha gaduud yar amba baroon. xulbada waxay siinaysaa timaha ayay jilcinaysaa. ukuntana tinta ayay u yeelaysaa dhaldhalaal. sidaas ugu socda insha Allah. maasha Allah waa ka faa'iidi doontaan. aad iyo aad ay u mahadsantihiin daawashada daawaneysaan. aad ayuu u fiican yahay isbuuci hal mar marso kabacdina wada arki doontid insha Allah. 2 saac ayuu ii marsanaanayaa. qofkii marsanaya waa inuu 2 saacadood oo qabsadaa kadib insha Allah wuu iska dhaqayaa. maasha Allah sida qaaliga daawashada daawateen aad iyo aad ay u mahadsantihiin. please asxaabtaada la wadaag, like, saar, share, comment intaba ka bixi. maasha Allah markaan soo marsado kadib saanay gacmaheedu guduud ku noqdeen. madaxan guduudkan guduud ka daran ayuu ku noqonayaa. asxaabteeda qaaliga waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.